waxaa jira xeer qoran oo warqadihiisu gidaarka guriga ee beyska waa xidigaa geeska ku yaalaan oo marka xasan ku qaldamo xasan qabanaya oo marka axmed ku qaldamo axmed qabanaya oo marka hablaha ay qaldamaan hablaha qabanaya oo cid ka madax dheeri aanay jirin bilaadmuna hadduu wax qoran waayo wax meel u yaallaa ay jiri weydo waxa ka lumaya ismaamulka iyo is-hogaaminta kooxda xidigaa geesku fanka ma baxsana waa koox faneed waa organisation fanka iyo wixii la taxalluqa ka shaqeeya arrimo siyaasadeed shaqo kuma laha intaana waxaan kaga baxayaa anoo hadalkayga koobaya koox ahaan iyo shaqadeeda mar kale waxaan ku celinayaa bini'aadmigu hadduu meel isugu yimaado wax la wada lahaado waan ku dambaynayaa ma kala hadal waayayo ma kala af waayayo mararka qaar baan la kala gacan la'aanayn waddanka baarlamaanka waad aragteen waddanka odayaashiisii isdilayo dhallinyaradiisii wax wada yeelatayna dee waabaan fiicanna haddaanan feedha iska tumin waa dadaalaynaada kooxda waxaa lagu soo daray xubno cusub xeerka kooxdaa fasaxa dhowrkii sannaba mar baa la qaataa waxaa lagu xushaa wixii markaa fan ahaan u qurux badan koox ahaanna wax taraya waxaa lagu soo daray 6 xubnood waxaa ka mid ah nin la yidhaha xuseen kaafi oo fannaana nin la yidhaha axmed aarshe oo fannaana inan barwaaqo la yidhaahdo fannaanada barwaaqo inan asma la yidhaahdo oo fannaanada inan ugbaad la yidhaaho fannaanada iyo nin maxamed yaro la yidhaah oo nin IT-ya professionaalkiisaa lagu doortay intaa markaan ka gudbo waxaan ku soo wareejinayaa mikrofoonka maamulkii kooxda oo goobta fadhiya ummadda ku xidhan kooxda xidigaha geeska fariin baan farayaa kooxdu waa koox idin jecel kalluunku haddii uu badda waayo dibadda kuma noolaan karo waxa uu noloshiisa ku xidhan tahay biyaha badda fannaanka baddiisu waa dadka hadduu fannaanku dad waayo waa kalluun biyo waaye sida aanu kalluunku badda biyo la'aan ugu noolaan karin ee barriga ugu noolaan karin ayaanu fannaankuna shicib la'aan u noolaan karin abwaanku shicib la'aan u joogi karin musishanku shicib la'aan u joogi karin annaga baddayadii baa tin annaguna waxaanu nahay kalluunkii si wanaagsan heesaha iyaga u ugaadhsada aanu kala magaranaysaa kalgacal fara badan qalbiga isugu hayno annana waa idin jecelnahay kay boogtiisu jacaylka tay waa u xoqaynaa kay boogtiisu waddaniyadda tay waa u xoqaynaa kay boogtiisu nebi ammaanka tay waa u xoqaynaa midun baanan u xoqi karnoo kay boogtiisu dhaliishatay jawaab uma hayno